السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو عبد الولي محمد أبوكر وماشات كبرتان برشاد كمبيوتركا يسيدو كلام ملتيميديا. muuqaalkani waxaan ku baran doonaa inta aadan dhaqin mobilka ama aadan format gareynin mobilka waxyaalaha ugu muhiimsan ee laga rabo inaad backup ka samaysato. backup waxa la dhahaa inta aadan dhaqin mobilkaaga ayaad waxaad samaynaysaa datadii kugu jirtay haddii uu ahaan lahaa SMS, calling, video, images, everything ee mobilkaaga kugu jiro oo files ah in aad ku save gareysan karto computerkaaga inta aadan dhaqin mobilka. waayo waxaad u baahan tahay inaysan data ka bixin markii aad mobilkaaga dhaqdana kadibna aad u baahan tahay inaad soo ceshato datadaada. haddii aad tahay qof inagu cusub maxaa inoo diiday inaad inoo saarto subscribe-ka sidoo kale aad inoo like gareyso muuqaalka iyo muuqaalada kaleba. hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo dhigno. waayo anigu waxaan ahay qofkii ku bari lahaa adiguna waxaa tahay qofkii baran lahaa. waxyaalaha aad u baahan tahay waxaa ka mid ah ugu horeyn inaad haysato mobilka aad rabtid inaad shaqada ka qabato iyo inaad haysato computerkii laga rabay inaad datada dhigato. way noo soo socotaa haddii aad haysato mobil oo aad rabto datadii mobilkan ku jiray kadibna aad u baahan tahay inaad ku soo rogato mobil kale. balse cashirkani waxaan ku qaadan doonaa in mobilkaagii aad ku koobi garan karto computerkaaga. waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah sida hadda u soo sheegnay in koodii hore aad haysato mobilkii laga rabay inaad shaqada ka qabato. laba inaad haysato computerkii laga rabay datada inaad dhigato. sidoo kale waxaa inoo raaci doonaa in aad haysatid USB-ga ku xiriirsama computerka. way dhici kartaa USB-yada waxay u kala baxaan laba qaab hadda sida shaashada kaaga muuqata. labadan USB waxay ku kala duwan yihiin. midna waa type A waxaa la isticmaali jiray muddo 2 sano 3 sano ka hor waxayna ku yimaadaan J4 J1 wax noocaas ay ku yimaadaan iyo mobilada kale oo caadiga ah. balse midkan kale waxaa lagu magacaabaa type C sida shaashada kaaga muuqata. waayo difference-ga u dhaxeeyo waa dareemi kartaa type A type C. sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad hesho internet waayo waxaan u baahannahay inaan soo degsano 2 software. sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad haysato computer si aad u soo degsato faylashan. ugu horeyn markii aad kiciso Chrome waxaad arkaysaa ama browserkii markaas kugu jiray computerka qaybta meesha searching-ka ayaad waxaad ku qoraysaa application-kan lagu magacaabo Smart Switch. waayo Smart Switch-ka wuxuu naga caawinayaa mobilkeena inaan ku xiri karno computerka data alaala datadan u baahannahay inaan ka bixin karno data alaala datadan u baahannahayna inaan ku soo shubi karno haddii uu yahay restore. waxa halkan ku arkaysaa markaad qaybta searching-ka ku qorto Smart Switch waxa ku soo baxayo page-ka ugu horeeyo ee Samsung-gaha ah. okay page-kan ugu horeeyo ayaad click ku siinaysaa. markii aad click ku siiso qaybta kore waxaan samaysanay tab waayo dadku waxa dhici karta halkan inay click siistaan balse aniga waxaan jeclahay iyadoo halkan ay taagan tahay inaan riixo control kadibna aan dhaho click ama inaan right click dhaho kadibna aan dhaho open a new link kaasoo iga saacidayo page-kan haddaan u baahdo in meeshii uu ii taagan yahay then page-kii kalena uu ii kacsan yahay marka intaasoo iga saacidaa. soo marka right click aan dhahay open new link aan dhahay qaybtan kore ee tabska ayuu ii koray. okay waxa halkan ku arkaysaa programkan waxa uu qabanayo everything faylasha uu koobiyeynayo. waxa halkan kaaga cad xataa inuu ku koobiyeynayo calendarkaaga timerka kugu xiran mobilkaaga everything ee markaas isdhihi karto waad ka koobiyeyn kartaa. okay programka marka page-ka sidatan u soo gasho halkan kama arkaysid waxaad imaanaysaa meesha ugu hooseeyo waayo application-ka aan rabnay inaan soo dejino wuxuu u kala baxaa laba qaab. midna waa mid computer midna waa midka laga rabo inuu ku soo dego mobilka. okay mobilkana waxaad ku soo dejin kartaa waxaad furaysaa Play Store-ka. Play Store-ka markaad furto meesha searching-ka ah ayaad click ku siinaysaa kadibna waxaad ku qoraysaa magaca Smart Switch. waxaa dhici karto mobilkaaga asal ahaan inuu ugu yimaado inta aadan Play Store-ka galin. ugu horeyn waxaa muhiim ah inaad fiiriso mobil ahaan inuu ku yimaado iyo in kale. si aad u fiiriso waxaad tagtaa mobilkaaga meesha laga raadiyo applications-ka sida shaashada kaaga muuqata. then waxaad dooranaysaa meesha kore ee searching-ka ah kadibna waxaad ku qoraysaa wax lagu magacaabo Smart Switch.
haddii aad meesha ku qorto aad ka weyso waxaad ogaataa mobilkaaga inuusan wadanin smart switch saas darteeda waxaad u baahan tahay inaad tagto Play Store-ka kadibna aad la soo degto programka waayo hadda waxaad arkaysaa in Play Store-ka aan ku qornay application-ka ah smart switch waa sida shaashada kaaga muuqata waayo haddeertaan anaga uu inoogu jiraa balse adiga waxaad u baahan tahay inaad ku install garaysato mobilkaaga ama aad tiraahdo download okay marka uu ku dhameeyo ma kicinaysid application-ka kadib waxa iska leedahay close sida shaashada kaaga muuqata okay waxaad imaanaysaa midka computerka waxaad hoos ugu soo degaysaa meeshan ugu dambeeya ay ku qoran tahay download smart switch haddii aad rabtid halkan hadaad ku dhufatid automatically wuxuu ku geynayaa Play Store-ka haddii aad isticmaalayso Windows waxaad dooranaysaa midkan ay ku qoran tahay Windows haddii aad isticmaalayso Apple-na waxaad dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay macOS marka anaga hadda waxaan isticmaalaynaa Windows waan ka xumahay anaga ma nihin asxaabta ama dadka Apple-ka aad u jecel aniga absolutely waxaan jeclahay Microsoft mobile ahaan marka la dhahona waxaan jeclahay Samsung waayo way ka features badan tahay waxyaalo badan oo imagination oo mobiladiina lehna haddii aad tahay qof Samsung isticmaala absolutely insha Allah channelkeena waxyaalo badan oo imagination ayaad ka heli doontaa soo dhawaada okay waxaad arkaysaa marka labadan software click ayaad ku siinaysaa automatically wuxuu ku bilaabayaa download haddii ay dhacdo marka wadadan dheer inaad diidan tahay muuqaalka aad daawanaysid hoostiisa waxa ku xusan linkigaas oo ay ku qoran tahay halkan kala soo deg ونمقشان شاشة فيري وحقوق قرن halkan kala soo deg click ayaad ku siinaysaa waad la soo degaysaa marka aad extract garaysanayso wuxuu ku weydiinayaa passwordkana waa 1 2 3 4 5 waxaad dhici karta markaa soo dejisid inuu ku weydiiyo password fadlan muuqaalka dhamayso si aad u hesho passwordka waxaan u maleynayaa in aad hadda heshay passwordka waa 1 ilaa 6 okay waad soo degsanay softwareka softwareka koowaad waa midka lagu magacaabo smart switch sidoo kale softwareka labaad aad la soo degtay oo isla folderkii ku dhex jirana waxaa lagu magacaabaa Samsung driver waayo mobilada Samsung-ga ah marka aad ku xiriirinaysid computerka waxay u baahan yihiin software kaasoo isbaraya computerkaaga iyo mobilkaaga inay is arki karaan okay maxaan sameynaynaa folderkii waan la soo degnay waan extract gareynay waxa arkaysaa desktopka inaan soo saaranay adi way dhici kartaa meel kale inuu ku saaran yahay okay ugu horeen waxaad ku shubaysaa driverkan ee ku qoran tahay Samsung USB driver double click ayaad siinaysaa next ilaa ay dhamaadkaad ku qabanaysaa okay softwarekaas waad ku shubatay waxaa inoo soo haray midka ah smart switch smart switch-ka double click ayaad sameynaysaa double click marka aad sameyso wuxuu ku weydiinayaa su'aal ah oo promotion ah ma ku daaraa oo yes ma dhaha application-ka ma kiciyaa mise waan iska xiraa anaga waxaan leenahay yes waayo waxaan rabnaa inaan ku shubno okay markaan dhahna yes kan aan iska minimize gareyno waayo uma baahninba marka ugu horeysa kaliya ayaan u baahanay daatada ee aad soo download gareysatay meel dhigo waayo wuxuu ku anfacayaa beri okay waxa ku soo kacaya marka dialog box-kan haddii ay dhacdo dialog box-kan inuu ku soo bixi waayo isku day mobilkaaga computerka ku xiran inaad ka disable gareyso waayo haddii ay dhacdo in setup-kan mobilkaaga oo ku xiriirsan computerka inaad la geliso marnaba kuma soo kacayo tusaale ahaan hadda waxaan iska xireynaa application-ka halkan waxa inoo yaalo S20 Ultra oo aan rabno inaan backup ka sameyno okay waan furaynaa waad u jeedaa wuu furan yahay okay waxaan soo qaatay waa USB-ga type C-ga wuxuu ka xiriirsan yahay computerka okay waan gelinayaa fiiri okay waan geliyay isla markii waxa arkaysaa computerkayga inuu ii soo qabtay mobilkii okay waxa ii soo kacay programkan asna waxa lagu magacaabaa DOCSIS insha Allah waa qaadan doonaa waxa uu qaban doono okay waan iska wada xireynaa DOCSIS-ka sidoo kale aan iska exit gareyno sababtoo ah hadhow waan u xijeenayaa okay hadda computerka waa uu ku xiriirsan yahay USB-ga okay smart switch-kan furaa smart switch markii aan furo fiiri su'aashu ii keenayo yes ayaan leeyahay waxa arkaysaa marka uu kicinayo application-ka inuu ku leeyahay kuma shubmayo driverka waayo haddii download box-kii aan arkaynay hadda kuma keenayo waayo haddii aad dhahdo driverka dooro retry maanta dhan ku keenaa illa ibri retry-gan uu kugu haynaa okay si aad u xalisa marka cancel ayaad iska leedahay ama exit aad leedahay mobilkaaga ka bixi USB-ga mobilkaaga ka bixi USB-ga
mobilkaaga ka bixi USB-ga kadibna waxaad ku shubtaa setup-ka waxaan u maleynaa marka anagana always waan idin sheegnay waxaan idinku sheegnana waxay tahay in anaga qaabka aan mareyno aad inala raacdo sababtoo ah anaga markaan cashirka soo duubeeno waxaan mar walba idin soo gudbinaa wax la hubo ee aan anaga rabno qaabka ugu fudud ee adiga wadada ugu isticmaalka dhow aad ku isticmaali karto waxaan u maleynaa inaad si fiican ila socoto okay kan ayaan tigti saareena sidoo kale kan ayaan tigti saareena anagoo aan ka dooranayno waxaan lagu magacaabay agentmentiga iyo meeshan kale ee destinationkiisa iyo wax noocaas no matter sidiis ayaan waxaan ku leenahay next isla markii waxa arkaysaa softwareki inuu ku shubayo computerka haddii ay dhacdo marka inuu softwareki kugu shubmi waayo computerka waxaad ogaataa computerkaaga inuu ku xiran yahay mobilka isku day inaad mobilkaaga aad disable ka dhahdo okay kan waan iska xireynaa oo uma baahnin softwareki aan rabnay waa aan ku shubanay okay halkan wuxuu inoo keenayaa marka jeegan koowaad wuxuu ku leeyahay desktopkaaga ma dhiga iconka ah smart switch waa adiga iskala joyska kan hoosena waxaad ka arkaysaa inuu kugu qoran yahay run smart switch marka aniga ma jecli absolutely sida hore casharadeen ugu soo aragteen desktopka inaan ku soo dhigo application ama wax folder ah kaliya waxa aan ku shaqeynayo daqiiqadaha aan ku shaqeynayo markaan ka dhameystana waan iska delete gareeyaa waayo mar walba waxaan jeclahay desktopkayga ama computerkayga inuu ii ahaado fresh okay halkan markii aad taagan tahay waxaad sameynaysaa aniga tigto aan ka qaadaya kan ayaan waxaan leeyahay run oo ah ii kici okay run markii aan dhaho waxaa arkaysaa isla markii inuu i weydiinayo mobilkaaga ku soo xiriiriya computerka okay maxaan sameynaynaa marka fiiladii waatana laakiin isku day fiiladaada inuusan error ama wax noocaas uu ku jirin haddii ay dhacdo fiiladaada inuu error leeyahay waxaa dhici karto faylashii aad koobiyeynaysay inuu USB-ga oo keligiis iska siibo ama wax noocaasa isku day marka fiiladaada inay computerka si sax ugu xiran tahay inta uu mobilka shaqada haayana inaadan mobilka isticmaalin waayo waxaa dhici karta inta yartaa mobilka ku jiro inuu wax yar lig sameeyo then uu ka baxmo USB-gaaga okay hadda waxaan sameynaynaa marka mobilka ayaan waxaan gelinaynaa USB-ga mobilka si tartiibaan u dhigaynaa computerka waxaa ka arkaysaa isla markii inuu inoo soo qaban doono su'aal ah inuu inoo leeyahay waad ujeedaa connectivity ayuu sameynaya okay connecting your device markuu idhaho waan sugayaa waxaa dhici karta marka mobilka inuu kaa weydiiyo su'aashaas oo ah yes iyo cancel isku day marka accept ama yes inaad tiraahdo si mobilkaaga aad u gashid gudihiisa okay waxaa arkaysaa marka Galaxy S20 Ultra inuu halkan inoogu soo baxay halkan waa backup halkanna waa restore halkan waxaad u baahan tahay marka aad backup sameynayso halkaana waxaad u baahan tahay backupkii aad samaysay inaad ka soo celiso inta si fiican ila fiiri fadlan halkan qaybta koowaad ay ku qoran tahay backup waxa waaye faylkii mobilka ku jiray inaad qaado oo aad ku shubto computerka qaybtan kale ee restore-ka ay ku qoran tahayna waa computerka markii aad ka soo qaado ee aad ku soo celinayso mobilka saas darteeda anaga hadda waxaan sameynaynaa marka inta aadan dooran backup waxaan kugula talin lahaa qaabka soo socda inaad samayso sababtoo ah waxaa dhici karta waxna inaad rabtid waxna inaadan rabin okay anaga waxaan gelaynaa meeshan ay ku qoran tahay option waxaad samaysaa marka qaabkan samaynayo raac waa haddii aad tahay qof qaabka aniga aan samaynayo oo kala sameeya okay waxaad furaysaa qaybta moorka kadib waxaa halkan ka arkaysaa in ay inoogu qoran tahay performance okay performance-ga ayaan keli ku siinayaa waxaa ii soo baxaya download box halkan aad ka arkaysid backup-yadii ugu dambeeyay ee aan sameeyay mobiladeeda haddii uu ahaan lahaa S10 iyo S20-ga okay qaybtan dhinacaaga midig ama qaybta dhexda ah ama taabisyada qaybta kore waxaa ka arkaysaa inuu inoogu qoran yahay backup items-kaas ayaan keli ku siinayaa waxaa arkaysaa mobilkaaga waxyaalaha aad u baahan tahay inaad tig saaran karto waxyaalihii aadan u baahnayn inaad tigti ka qaadi karto okay marka halkan joogto waxaa arkaysaa marka haddii ay dhacdo sida anigoo kale hadda aniga mobilka memory ay ugu jiro oo memory external ayaan isticmaalaa haddii ay dhacdo marka inaad memoryna mobilkaaga uu kugu jiro backupna waa kasii samaysan kartaa okay waxaa halkan inoo hara marka inaan doorano waxaan aniga u baahanahay aniga ahaan waxaan jeclahay inaan koodii hore koobiyeeyo contactska inaan koobiyeeyo message-ka inaan koobiyeeyo Samsung Note waayo Samsung Note-ka aniga inta badan waan ku shaqeeyaa waayo waxyaalo badan ayaan ku save gareystaa okay waxa sidoo kale ku arkaysaa call log oo ah wixii aad adiga wacday iyo wixii lagu soo wacay iyo wixii miss call ku sameeyanba
clock oo ah haddii mobilkaaga aad ku xiratay timer oo ah inuu subaxii ku kiciyo ama xiliyada salaada wax noocaas ah inaad ku save gareysan karto. Okay, internet haddaad u baahan tahay internetka waad saaran kartaa. haddii aad u baahan tahay internetka waad saaran kartaa. haddii aad u baahan tahay Samsung Health waxyaalahan oo dhan waad dooran kartaa. Okay, halkan waxaa ku arkaysaa inuu inoogu qoran yahay mobilka applicationkiisa oo ah multiple. marka inta waad dooran kartaa applicationka. sidoo kale aniga inkastoo aan applicationskayga aan u diyaarsado wax lagu magacaabo Wondershare Mobile Go, iyadana way noo soo socotaa, balse muuqaalkan wuxuu ka saacidayaa all of them inaad ku samaysan karto. marka sababta u yeelaya waxay tahay haddii hadda kan aan saaro wuxuu isku darayaa wixii Play Store-ka lahayd oo update ahaan uu samaystay iyo wixii aad adiga private-ka u lahayd, tusaale ahaan WhatsApp-ka, sidoo kale Facebook Messenger-ka, sidoo kale Imo-ga, sidoo kale waxyaalahaas oo dhan ayuu wuxuu sameynayaa all of them uu isaga darayaa. aniga laakiin waxaan jeclahay inaan si gaar ah qaybta applicationska aan u samaysto, balse adiga isku day inaad saarato kan. qofba choice uu leeyahay, laakiin aniga absolutely ma jecli, waayo application kale ayaan isticmaalaa, balse muuqaalkan waxaad ku saarataa halkan tigta. mar walba isku day qaabka aan anaga dooranayno inaad doorato. marka kan waad saaranaysaa waqti xaadirkan, balse muuqaaladeena kale ee soo socda insha Allah waad ka maarmi doontaa. Okay, kan tigta waad saaranaysaa. sidoo kale haddii uu memory kugu jiro waxaa ku arkaysaa multimedia SD card meeshaan ay ku qoran tahay. sidoo kale sawirada kugu jiro, maqalka kugu jiro, muuqaalka, documentiska, voice memo-ga, everything ayaad saaranaysaa. Okay, maxaan sameynaynaa? kaliya waxaan leenahay okay markii aan dhahno wuxuu leeyahay settingskan waxyaalahan ee aad hadda dooratay ma kuu save gareeyaa. confirm aan leeyahay ii save garey. okay, isla booskii ugu soo celiyo. so waxaa arkaysay gacantaada midigta inuu ku weydiinayo email-adii iyo waxyaalaha. marka everything waa saaran kartaa. select all waa dhigi kartaa, multiple waa dooran kartaa, choice-ka adaa iskale. laakiin aniga waxaan rabaa inaan ku siiyo furaha qaabkaad rabto adiga u bedelo. okay, markii aan joogno halkan maxaan sameynaynaa marka? kaliya waxaan leenahay meeshaan ay ku qoran tahay backup oo ah backup garey. backup ayaan leeyahay. automatically waxaad arkaysaa in mobilkaagii uu ku bilaabayo backupkii, kaasoo uu ku shubayo computerka. waxaad arkaysaa contactigii inuu wado, messagekii, Samsung Note-ka, okay, call log out-ka, okay, alarmiga, clock-ga, applicationskii oo aan tigta saaranay. waxaa arkaysaa marka everything ee aad markaas u baahan tahay inuu ka qaado computerkaaga, mobilkaaga uu geeyo computerkaaga inay shaqadii ee hadda inoo socoto. waxaa arkaysaa applicationka inoo marayo 17%. marka waxay ku xiran tahay computerkaaga. markaan ku leeyahay isku day fiilada inaadan dhaqaajin, waayo waxaa dhici karta adoo 100% u dhow inaad fiilada taabato, waayo shaqadaada waa haddii alif axmaale bilaa usoo laabanay. marka iska ilaali mar walba shaqada markaa qabanaysid waa inuu joogaa attentionkaaga, attractionkaaga, everything inuu joogo si shaqada aad rabtid uu si fiican kugu qabsoomo. okay, sidoo kale waxaad awood u leedahay meesha settingska hadda aan tegaynay, waxaad awood u leedahay mobile kale haddii aad hesho meesha lagaa rabay inaad all restore aad ku dhahdo, iyadana waad kala dooran kartaa oo meesha isla settingski meesha hadda ayaad gelaysaa, waad kala dooranaysaa wixii aad rabtid inaad mobile kale ka shubto. tusaale ahaan aniga hadda waxaan isticmaalaa S10 iyo S20. waxaan sameeyaa marka contactiyada waxaan ku soo gudistaa S10-ka, waayo waxaan diidayaa applicationka ku jiro, waayo kala user ayaan u isticmaalaa. applicationka ku jiro S20-ga inuu ii soo galo S10-ka, waayo waxaan rabaa S10-ka applicationkiisa inay gaar noqoto, S20-gana applicationkiisa ay gaar noqoto, laakiin contacti ahaan inay noqdaan isku nuuc. marka meeshii hadda ayaad gelaysaa, contactigii kaliya ayaad tigta saaraysaa ama message-ka ayaad tigta saaraysaa, dib ayaad u soo celinaysaa. waxaa arkaysaa kaliya inuu kuu soo bixinayo message-kii iyo wixii markaas adiga aad dooratay. marka application-kan aad hadda arkayso waxyaalo badan ayuu kaa saacidayaa. waxaana u malaynaa qaabka ugu fudud ee application-ka loo isticmaalana inaad tahay qof inagala fahmay. ugu dambeyn wixii aad raadinaysay waa aad heshay. fadlan waxaanu kaa codsanaynaa inaad inoo subscribe garayso channelka, sidoo kale aad inoo like garayso muuqaalkan iyo muuqaalada kaleba, sababtoo ah waanu kaaga mahadcelinaynaa. hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo dhigno. waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo cashirkeena xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.